kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada warkan oo aan ugu talagalnay inaan kaga hadalno xaaladda dalka koonfur afrika iyo soomaalida ku nool dalkan dhibaatooyinka soo wajahay dowladda South Africa iyo weliba shacabkooda. Haddaba dhibaatooyinka ayaa waxa u kala baxsan yihiin kuwa shacabka ay soo abaabuleen dad isa soo abaabuleen ay ka mid ahaayeen inay markaasi ka hor keenaan dowladda iyo dadka meheradaha ku leh dalkan koonfur afrika ee ajaaniibta ah oo ay Soomaalidu, Etoobiyaanka iyo Bakistaanka sidoo kale into Chinese iyo Hindiba ay ka mid yihiin. Sidoo kale dadkaasi ayaa waxaa ka mid ahay arrimaha ay la yimaadeen wax la yiraahdo food poison ama raashin lagu sumoobo, kuwaasi oo ay sheegeen in ka badan 20 caruurtooda inay ku dhimatay raashin sumoobay. Laakiin su'aashu ayaa waxa ay tahay raashinka halkuu ka yimid, shirkadee iska lahayd iyo weliba ilaa Soomaalidu iyo dadka ajaaniibta ah raashinka la gado ma ayagu ma sameeyaan ee way sii gadaan suuqa ay ka soo qaataan. Haddaba dowladdu waxay markaa banaabaxyo iyo dibadbaxyo aad u fara badan markii ay dhigeen shacabka oo ay isku dayeen inay markaasi ku xumaan dukaamanka ay sameeyaan barnaamijkii xenophobicada ahayd ayaa waxaa markaa dowladdu sameysay nidaam ay ku dejinayso dadkan sharcina ay ugu soo saaraysaa dukaamanka qaxootiga dalkan jooga oo Afrikaanta ah inay markaasi sameystaan sharciga dukaamanka laga diiwaangelin lahaa ayaa imikan markay dowladdu soo bandhigtay 20 maalmood muddo ah ay siisay ayaa dadkii madowga ahaa waxay yiraahdeen waa in ay ka baxaan dalka oo ay wax ganacsiina ku samayn wax la registreynayo sharci oo la siinayo oo ganacsi aan ma jiro. Dhibaatada ugu weyn ayaa markaa waxay noqotay in dadku ay South Africaanka qaarkood ay ka soo horjeesteen fakirka ah in dukaamanka la wada xiro loo diido inay dukaan meeshaasi marka laga sameeyo xaafad. Sababtoo ah dadku waxay leeyihiin qaarkood haddii dukaanka la xiro waxa anaga noogu soo sokeeyo Shoprite, Pick n Pay waa dukaamanka ugu waaweyn ee dalkan koonfur Afrika. Qaarna waxay leeyihiin pressure-ka iyo dhibaatada waxa ka dambeeyo Shoprite iyo Pick n Pay inay markaasi dukaamanka yaryar ee tuck shop-ka ama spaza shop-ka loo yaqaano ay ku yaala xaafadaha dhexdooda in la xiro. Haddaba dadku waxay leeyihiin 18 ran haddii uu joogo loaf bread ama rootiga wadanka laga cuno markii aan rabno waa inaan u tagnaa Shoprite ugu yaraan aan bixinaa gaari 15 ran ah aan ku raacno 15 ranna aan ku soo laabano, halka loaf bread oo gurigeena ku dhagan oo yahay dukaan oo aan ka heli jirnay caruurteena aan u dirsan jirnay. Dhibaatada ka jirta dalkan koonfur Afrika waa qayb ka mid ah. Haddaba haddii ay dowladda South Africa ay keentay xeerka sharciga haddana waxaa la diiday gebi ahaanba in laga register-gareeyo goobaha municipality-ga ama dowladda hoose ee degan tahay. Haddaba arrintan maxaa la gudboon dowladda South Africa iyo weliba safaaradaha dadka oo soo galootiga ah wadamada ay ka soo jeedaan safaaradaha ku yaala dalkan ayaguna maxaa la gudboon. Haddaba su'aasha taala waxay tahay Soomaalidu safaaradooda ilaa iyo haatan ma aysan u doodin dukaamo fara badan ayaa waxaa looga soo xiray gobolka Gauteng gaar ahaan xaafadda ama deegaanka Soweto oo dadka madowga ah ay inta badanba ay neceb yihiin dadka foorumka ah ee ama ajaaniibta ee ganacsiga halka ku haysato. Safaaradda ilaa iyo hadeertan wax wada hadal ah ama dadaalaad ah ay sameysay oo cad oo muuqdo ama media loo soo bandhigay ma jiro. Haddii ay jiraanna waan gadaal ayaan ka ogaan doonaa oo ilaa haatan wax muuqdo ma lahan. Sidaas ay tahay waxaa jiro dukaaman aad u fara badan oo gaaraya 500 iyo in ka badan oo dukaaman ah oo dhammaanba la wada xiray ka gorto alaabihiina la yiri Soomaaliduna la arkayay maalmihii ugu dambeeyay ayagoo markaasi gawaari ku guranaya alaabihii dukaanka lagu gadayay. Taana waxay dhibaato weyn ku noqotay ganacsatada Soomaalida ah oo cunaqabateyn lagu sameeyay dakhligii ka soo gali jirayna oo qoysas fara badan oo dalka Soomaaliya ku noolaayeen ay markaasi ku biili jireen ayaa hoos u dhac weyn laga dareemayaa. Haddaba ugu dambeyntii waxaa markaasi dadku ay inta badan isweydiinayaan aaway kaalintii safaaradda Soomaalidu ay ka lahayd dadka halkan Soomaalidu u joogana ay ugu dooday lahayd. Maxamed Abuukar Baariyow, Cape Town, South Africa.